halkani waa runta wararka daawadayaal qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaramada midoobay oo war ka soo saartay heshiiska cusub ee golaha wadatashiga qaran ciidanka booliiska Somaliland oo maalmaha soo socda gacanta ku soo dhigi doona haween fara badan oo dhibaato ka geystay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyo madaxda maamul goboleedyada oo cadaadis xooggan waqtiga kan la saarayay iyo go'aanada farmaajo looga saarayo filla Soomaaliya iyo Rooble oo doonaya markan in uu awoodiisa u adeegsado doorashada Soomaaliya ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta idinkugu soo gudbin doona hadaba daawada hadii aad janaalkeena runta wararka ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka isla markaana wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeyo qaramada midoobay ayaa waxa ay war ka soo saartay heshiisyadii dhawaan ee wada galeen madaxda golaha wadatashiga qaran war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay heshiiska cusub ee shalayta magaalada Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo go'aan ka soo saaray xaaladda dalka iyo doorashooyinka qaramada midoobay ayaa bogaadiyay isla markaana amaanay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib shirkii Muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay muhiim ay tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro waqtiga cusub ee la qabanayo doorashada Soomaaliya sida ay sheegeen mas'uuliyiinta qaramada midoobay Ambassador James Swan ayaa waxa uu saacad u tilmaamay in ay talaabo kasta ay qaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble ay saacad ay u taageeri doonaan isla markaana ay aad ugu amaanayo qaabka ay wax waliba ay waqtiga kan ay wajaheen qaramada midoobay ayaa si gaar ah ula socoto go'aamada iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka Soomaaliya maadaama ay horey u sheegeen mas'uuliyiinta qaramada midoobay in wax walba ay muhiim ay tahay in laga hortago oo ku aadan xaaladaha halista gali kara waqtiga kan xaadirka sidoo kale waxaa arrimaha kala duwan ee waqtiga kan jira ay noqon karaan kuwa isbedel kala duwan lagu wada doonayay inkastoo wax walba ay noqonayso mid la doonayay in laga gudbo qaramada midoobay ayaana waxa ay hadda u muuqanaysaa kuwa dadaalo badan bixinaysa dhanka kale maxay ka wada hadleen Shariif Sheekh Axmed iyo Master Breed Reglon gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay safiirka dowladda Norway ee u jooga Soomaaliya kulankani dhaxmaray Shariif Sheekh Axmed iyo safiirka dowladda Norway u jooga Soomaaliya Ellen Breed Reglon ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay doorashooyinka iyo xaaladaha ka soo cusboonaanayo arrimaha siyaasadeed ee dalka waxaana inta uu kulankaasi socday si gaar ah diiradda loo saaray dardargelinta doorashooyinka dalka dhaqangelinta heshiisyada golaha wadatashiga qaran isagoona u mahadceliyay taageerayaasha beesha caalamka gaar ahaan Norway ee ku aadan nabadda iyo sidoo kale dimuqraadiyadda Soomaaliya gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale xalay kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana ay ka wada hadleen qodobada ugu muhiimsan kuwii ka soo baxay shirkii Muqdisho lagu soo gabagabeeyay Shariif Sheekh Axmed ayaa Muqdisho waxa uu ka wadaa kulamo gaar ah oo ku doonayay in uu mar walba sidii uu guul fudud uu ku heli lahaa isla markaana mar labaad uu ku noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda waxa uu yahay nin qoyar socod ah isla markaana uu doonayo inuu guulo waaweyn uu ka gaaro arrimaha doorashooyinka dalka tanina waxay ka dhigan tahay dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo Shariif Sheekh Axmed uu waqtigan uu dalka uu ka wado in uu doonayo inuu si fudud u guuleysto Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda hore dalka isagoona si gaar ah ula socdo wax waliba inay noqon karaan kuwa danta shacabka si gaar ah looga fikirayo tanina waxay noqonaysaa inuu guulo waaweyn uu ka doonayo inuu doorashada Soomaaliya uu markan uu ka gaaro inkastoo Shariif laba jeer uu ku fashilmay inuu noqdo madaxweynaha dalka haddana waxa uu doonayaa inuu mar saddexaad uu doorashada xilkeeda madaxweynimo oo isku soo sharaxo inkastoo warar hoose aan helayna ayaa waxay sheegayaan in Shariif Sheekh Axmed uu beeshiisa uu doonayo inuu xildhibaan
xildhibaan uu noqdo maadaama kursiga uu hadda uu doonayo uu ku fadhiyo wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdulaahi Maxamed Nuur. Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay kasoo jeedaan beesha Agoonyar Gaabane, waxaana uu hadda Cabdulaahi Maxamed Nuur uu ka dhaadhicinayaa in gebi ahaanba isku soo sharaxin kursigaasi, inkastoo kuraasta kala duwan ee beesha Gaabane ay maalmihii ugu dambeeyay ay jireen caqabado kala duwan oo hortaagan, inkastoo uu hadda Shariif uu mar waliba uu doonayay in uu wax waliba halis keeni kara in uu ka hortago. Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu horey u tilmaamay in go-aan kasta uu noqon doono mid guulo fara badan uu ku doonayo hogaamiyihii hore ee dalka, islamarkaana noqday shaqsigii ugu horeeyay ee dalka doorasho ku dhigo tan iyo dowladii kacaanka ee uu hogaaminaya Allah u naxariistay Generaal Maxamed Siyaad Barre. Dhinaca kalena daawadayaal, qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa digniino kama dambaysa loo diray, iyadoona digniintani ay tahay inaysan faragelin ayna ku sameynin beelaha qaar. Warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyada dalka uu amar adag uu dul dhigay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyagoona balamo adag wada kala qaatay. Balamahani ayaa waxay yihiin kuwa inaysan faragelin ayna ku sameyn karin, inkastoo laga cabsi qabo in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Laftagareen faragelin qaawan ay doorashada ay mar kale ay ku sameeyaan, maadaama eed ugu badan waqtigan doorashada ay ka jirto dhanka maamulada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya, kadib markii kuraas ay u kala boobeen Yaasiin Faray iyo qaar ka mid ah xildhibaano aan hore uga tirsaneyn baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa hadda warar hoose aan helayna waxay sheegayaan in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu doonayay inuu wax waliba uu ka aadan arrimaha doorashooyinka isbedelo uu ku sameeyo. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida tooska ugu xiran filla Soomaaliya kana amar qaata madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa qorshayaal halis ah waqtigan u maleegaya madaxda maamul goboleedyada qaar ee Jubbaland, Puntland iyo Hirshabelle, inkastoo Hirshabelle waqtigan laga cabsi qabo in dagaal toos ah laga dhex abuuro beelaha dega qayb ka mid ah deegaanadaasi, waxaana Farmaajo uu qorsheynayaa in dhibaatooyin waaweyn uu ka geysto deegaanada maamul goboleedyada dalka, maadaama kuraasta golaha shacabka doorashadooda lagu soo koobay hal magaalo. Tiimka Farmaajona aysan ku qanacsaneyn, inkastoo Rooble uu tani ay faa'iido fara badan ay ugu jirto, isla markaana uu soo dhaweynayo go-aan kasta ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ayaa horey waxay u sheegeen inay wax waliba ay noqon doonaan wax ay guulo waaweyn ay ku doonayaan, isla markaana go-aan kasta uu noqon doono mid wax walba looga hortagi doono. dhanka kalena haween la sheegay inay dhibaatooyin fara badan gabdho yaryar ay u geysanayeen ay markaani booliiska magaalada Hargeysa ay baadigoob ugu jiraan. Booliiska magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in ay gacanta ay ku soo dhigayaan doonaan haween fara badan oo la sheegay inay caadeystaan gabdhaha jaaliyadaha ee ka howlgala guryahooda ay dhibaatooyin iyo jirdil ay u geystaan. Maamulka Jamhuuriyadda Somaliland mas'uuliyiintooda ayaa hore waxay u tilmaameen in ay mar walba ay go-aan kasta ay qaadan doonaan ay noqon doonto sidii ay kaga hortagi lahaayeen cid kasta oo dhibaateynaysa shacabka deegaanada maamulkaasi. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horey waxaa lagu eedeeyay in uu dhibaato badan u geysanayay qaybo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala gurigiisa. waxaa hadda ay u muuqanaysaa in howlwadeenada xaafadaha magaalooyinka Hargeysa qaarkood ay yihiin kuwa tacdiyo fara badan la kulmaya, inkastoo aan talaabooyin adag hore aan loo qaadin. Haddana waxaa madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi lagu eedeynayaa inuu dhibaatooyin kala duwan uu halkaasi uu ka wado. Warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan Cabdiraxmaan Cire iyo Faysal Cali Waraabe ay markaan ay doonayaan inay gebi ahaanba ay ka taqlusiyaan taageerayaasha Muuse Biixi haddii ay dhicid weysana caqabada adag ayay la kulmi doonaan madaxda aan horey idinkugu soo sheegnay. Madaxdani Somaliland ku sugan ayaa qaarkood waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba deegaanada Somaliland laga soo masaafuriyo. guud ahaan daawadayaal warkii janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waa naga inta hadaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusubtahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo comment-ka nagu dadaala. waad mahadsantihiin daawadayaasha sharafta naga mudan.